guddiga qabanqaabada shirka shirweynahan waxaan kaloo aad u bogaadinayaa dadweynaha ka soo qayb galay oo iyagu matalaya qaybaha kala duwan oo shirkaanu ka kooban yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddaan ku soo boodo hadalka wax badan ka dhihimayo ragga iga horreeyay baa igana hadal badnaa oo ka hadlay Dhoore iyo Cali Xaaji baa sheegay sida xaalku yahay iyo meesha uu xaalku marayo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob. qodobna waxa weeye qodobka shirka waxaan ka codsanayaa in uu ka soo baxo go'aamo rasmi ah oo wax ka bedela xaaladda siyaasadeed dalku hadda marayo. haddii uu naga noqdo ama naga cawajo waan ugu adkaanaysaa hadhow inaan dib isugu soo noqonno oo aan wax kale ka nidhaahno. waa in aan soo saaraa qodobo muhiim ah oo xaalku dalku marayo maanta ka bedela sida wax yihiin. madaxweynuhu sida la sheegay dalka waa ka maqan yahay laakiin waa ka warhayaa meesha aan fadhinno waana og yahay waxaan ka hadlayno. marka waxaan rajaynayaa marka uu soo dego in go'aamada shirkan uu laftigiisa ku dhaqmo oo uu qaato. midda kale waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta dimuqraadiyadda. waxaa markhaanti ka ah dimuqraadiyaddii Puntland oo siciidani waday inay burburtay. Mideeye iyo Horseed iyo dhallinyaradu halkaan ay fadhiyaan. waxaa fadhiya Mideeye oo Horseed kaga horreeyay dimuqraadiyaddii dani waday oo iyagu u arkay bal haddii ay wax ku jiraan nidaamka dimuqraadiyadda oo at least rajo leeyahay in ay bal ku baadi goobaan oo ay doonaan. laakiin maanta halkaan ay ka fadhiyaan dimuqraadiyaddii siciidani wuxuu noqday ururkii labaad oo codka hela marka laga reebo ururka dawladda oo isagoo codka boobay laakiin isagoo si dadku ay rabaan ugu codeeyaan. waxaa dhacday in degmadii Boosaaso oo magaalo madaxdii ganacsiga oo ay 13 xubnood ka heleen in urur 4 xubnood helay lagu wareejiyay maayarkii inay maanta 2 maayar leedahay magaalada Boosaaso. dimuqraadiyaddii Puntland waa dhimatay. sida Cali Xaaji sheegay waxa weeye nin hadda lagu abaalmariyay inuu bilaabay ma jirto. nin walba waa bilaabay meel buu geeyey. siciidani meeshii ugu xumayd buu geeyey. shacabkii Puntland buu kala qaybiyey. labo isugu diray iska hor keenay waa isku diray qoysas buu isku diray xataa. waxa weeye barnaamij siyaasadeed oo aan horey Puntland weligeed looga arkin ayuu ninkaas ku dhaqaaqay. waxaan rajaynayaa shirkan in uu go'aan ka gaaro wajahada siyaasadeed dalku ku socdo. qodobka kale aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye qodobka maxkamadda dastuuriga oo raggu ka wada hadleen. maxkamadda dastuurka garsoorayaal fiican baa ku jira oo shaqo fiican wada morality-gooduna fiican tahay inay shaqeeyaan loogu talagalay. madaxii baa ka xumaaday. ninka guddoomiyaha ma aqaan inuu shalay maanta yimi kolley waxaan u maleynayaa Siciid buu la socdaa. markuu yimaado kolley dalka ka tag baa leeyahay. faylashii buu kala tegey. dacwooyinkii la qaaday buu qaarkood qaatay. kuwii la yaalay buu la tegey. waxaan rajaynayaa dawladda cusub ay soo socota in la maxkamadeeyo dadkii xadgudubka ku sameeyey nidaamka dawladnimo oo Puntland oo muddada 24 sano soo jiray. waa in la maxkamadeeyaa. waa in maxkamad la saaraa ay ugu horeeyaan baarlamaanka hadda fadhiya ay ugu horeeyaan. waxaan ka rajaynayaa odayaasha soo socda haddii la soo xulo in dadkii baarlamaanka codeeyay gacanteena taagay uusan hal qof kaga soo noqon in dib loo magacaabo. haddii uu kaga soo noqdo waxaan ka hadlaynaa waxba kama jiraan. waa inaan kambeynka ku darsannaa. waa inaan ku darsannaa baaqeenna iyo abiilkeenna ku darsannaa. sababtoo ah dadkaasu waa dad khalad siyaasadeed iyo iska horimaad gacmahoodana dhiig ku jiro. ka baqi mayno musharax baan ahay iyo musharax ma ay kaga baqi mayno inayna doortaan. dalka waxaan rabnaa ninkii dembi ka galay in la xisaabtamo. waa lala xisaabtamayaa. maxkamad baan la soo saaraya. guddoomiyaha maxkamadda sare ha ugu horeeya hadduu rabo. waana mahadsantihiin. waana mahadsan yihiin. aad buu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan waqtigu noo